gudoomiyaha gobolka Badhan Maxamuud Xaamud Cumar oo maanta Universal TV kula hadlay gudaha magaalada Yube oo qiyaastii 60 kiiloomitir dhinaca galbeed ka xigta magaalada Badhan ayaa waxa uu ka warramay dagaal maalinimadii shalay ee degmada Hadaaftimo oo ka tirsan gobolka Badhan oo markaasi gudoomiyuhu ku sugnaa ay ku soo qaadeen ciidamo ka tirsan maamul goboleedka Puntland. Gudoomiyaha ayaa ka warbixiyay khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay iyo sida xaaladdu imika tahay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sida tan. waxaan rabaa inaan cadeeyo xaaladii shalay ka dhacday deegaanka Hadaaftimo waxaan safar kaga nimay magaalada Cergaabo waxaan soo gaarnay degmada Hadaaftimo abaaro 10 subaxnimo halkaas waxaan ka helay soo dhaweyn balaaran aan dadkaygii la joogno wax yar kadib ayaa waxa aan la kulanay weerarkaas oo ay noo geysteen dabley ka soo jeeda maamulka Puntland nasiib wanaag ciidankii la socday iska caabin fiican bay sameeyeen khasaaraha dhinacayga soo gaaray waa 2 askari oo ka tirsan ciidamadii ilaaladeeda ahayd iyagana khasaaraha gaaray hal sarkaal waa ka dilay hal sarkaal waa ka dhaawacnay 3 ciidanka kalena waanu ka dhaawacnay hal gaari waan ka qabsanay anagu markaanu ummadayda u imaneynay dib iyo mashaqo iyo rafaad midna umaanaan socon nimankaasu cidna uma tureyn shacabkii xabadii la soo galeen maatadii iyo maxasi oo Hadaaftimo joogta ayay wax u isticmaaleen qori aan la aqbali karin ciidanka ila socday iyo ciidankii qaranka oo ku sugnaa Yubeba waxa loo turay dadka maatada ah ee jooga Hadaaftimo dadka ku soo duulay waa dadkoodii ay joogaan mudug iyo qandala laakiin ciidanka aniga la socday waa dadkii deegaanka deganaa waa dareemi kartaa nin eedadii habeertii ay joogto Badhan inuu uga turayo laakiin ninka mudug ka yimi iyo ninka qandala ka yimi inuu sii baabiyo ayuu rabaa waxaan rabaa inaan fariin u diro ummadda ku nool gobolka Badhan aan iraahdo mid aan idin turayn yaanu idin furin ma rabno dadkayga inuu dawladeyno laakiin haddii nala dawladeeyo anana waanu dawladeyn waxaan rabaa inaan ugu baaqo bulshada ku dhaqan gobolka Badhan waayeelka iyo waxgaradka dhalinyarada oo mid walba inay ka fikiraan cid nabadooda ilaalinaysa waxaan arkaa in badan oo ku jirta haro wanaagsan deegaan wanaagsan xaalad wanaagsan laakiin danaynaysa in waxa dhib tahay aan fahansanayn oo kula dhax gabanaya maatadii caruurtii Badhan joogtay xaaladaas shalay waa laga warayay miidiyaha anaga waxba naguma saaganayn wararka ku taana baa waxay sheegayaan in gaarigayga la qabsaday gaarigayga gacanteeda ku jira gaariga ciidanka qaranka ee Bartalaas qoray gacantooda ku jira xalay waxaan ku sugnaa Hadaaftimo saaka waxaan u soo kicitamay hawl shaqo waxa jooga deegaanka Yube halka waxa ku sugan cutubyo kamid ah ciidamada qaranka Soomaaliland xaalad baan hadda ku jiraa shirareed insha Allah taala kuma jiro waxaan mar allaba mar rabnaa anagu walaal iyo aan wax u kanno laakiin waxaan rabnaa in aan dawladnimada iyo horumarka waddanka ka shaqeyno laakiin haddii ay timaado insha Allah dawladda isku soo Soomaaliland istifaacaysa ورسفاعي دونتا سيدي u difaacday asqaanood iyo tukaraq ay u difaaci doontaa magaalada Badhan Yunis Sheekh Ahmed Universal TV wararka gobolka Sanaag.